الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جمعة wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal maanta cashirkan kooban waxaan ku fiirinayaa sida loo sameeyo prime factorizationka laba number kadibna prime factorizationkaas looga soo dhex saaro labada number LCM kooda iyo GCF kooda LCM waxa uu yahay iyo GCF waxaan ku soo sheegay muuqaalkii kan ka horeeyay oo aad ka heli karto YouTube-kayga Ali Mahdi Jilacow marka prime factorization tusaale hadda fiirino waxaad soo yeeshaa prime factorizationka labada number ee kala ah 36 iyo 20 kadibna waxaad keentaa LCM kooda iyo GCF kooda marka prime factorizationka sameey macnaheedu waxay tahay prime numbers u qayb numberkan prime numbers waa numberada 2 3 5 7 11 13 17 numberada noocaas ayaa waxa la dhahaa prime number oo marka ugu horeysa 2 ku fiiri hadii 2 ay u qaybsami waayo numberku 3 ku day haduu 3 u qaybsami waayo 5 ku fiiri 7 ku fiiri sidaas u soco ee numberka prime numbers bas u qayb ilaa uu ka dhamaado 1 aad ka hesho marka 36 hadii aan prime numbers kada sameeyno waxay noqonaysaa sida tan 36 marka ugu horeysa 2 aan u qaybiyay 36 2 u qayb waa 18 18 kan 2 u sii qaybi waa 9 sagaalka marka 3 baa loo qaybi karaa 2 looma qaybi karo marka 3 u qaybi sagaalka waa 3 3 u sii qaybi waa 1 marka 20 iyana prime numberkeeda hadaan qorno waxay ku noqonaysaa sida tan 20ka 2 u qaybi 2 prime number ugu horeysa waan u qaybsamaysaa waa 10 10ka 2 u sii qaybi 2 u qaybsamaysaa waa 5 5 marka 2 u qaybsamayso 3 u qaybsamayso laakiin 5 u qaybsamay 5 u qaybina waa 1 marka prime numberska 36 waxaan qori karnaa waa dabcan waa 2 iyo 3 waa 2 hal mar qor kadib 2 jeer soo noqotay 2 ku jibaar marka prime numberska 36 wuxuu noqonayaa 2 power 2 madaan numberkan 2 2 jeer soo noqda 2 ku jibaartay marka waxaad ka wadaa 2 jeer soo noqotay 3dana 2 jeer soo noqotay marka 20ka laftirkeeda waxaan qori karnaa 2 power 2 times 5 power 1 oo hal mar soo noqota laga wadaa 5ta marka hadii aan fiirino prime numberska oo 36 dabcan halkan waxa ku jirta 5 inta laakiin 5 kuma jirto inta hadii 5 ku jirin laakiin waad ku kordhi kartaa 5 power 0 5 power 0 macnaha 5 power 0 wax ma soo kordhinayso hal waaye ku dhufashada wax ma ka bedelayso marka waxaad ku kordhi kartaa 5 power 0 sidoo kale markaan prime factoriska 20 fiirino halkan 3 baa ku jirta inta 3 kuma jirto laakiin waad ku kordhi kartaa 3 power 0 oo hal way halna ku dhufashada wax ma ka bedelayo marka waa sidaas waxaan sameeynay prime factoriski oo markaysa oo 36 iyo 20 dabcan 5 power 0 waa 1 asgu prime number ma ah laakiin ku dhufashada waxaan rabaa inaan factoriska 20 iyo factoriska 36 mid ee kaliya marka GCF sameynayo markaan sameynayo waxaan firinayaa laba factor kasta oo isku mid ah waxaan ka qaadanayaa midka jibaarka yar hada 2 power 2 oo halkan ku jirta iyo 2 power 2 halkan ku jirta dabcan ma kala power weyna marka mid baan ka qaadanayaa 3 power 2 iyo 3 power 0 dan waxaan ka qaadaa midka powerka yar oo 3 power 0 ah 5 power 0 iyo 5 power 1 waxaan ka qaadanayaa 5 power 0 midka powerka yar midka jibaarka yar waa marka aan sameynayo GCF ka waa hagaag marka GCF ka 36 iyo 20 wuxuu noqonayaa sidan 2 power 0 iyo 2 power 0 isku mid waaye hadii kala jibaar weynaa lahaayeen midka jibaarka yaraan soo qaada lahaa marka 3 power 2 iyo 3 power 0 na waxaan ka qaaday 3 power 0 5 power 0 iyo 5 power 1 na midka jibaarka yaraan ka qaaday 5 power 0 marka GCF sameynayso waxaad qaadataa labada factor midka jibaarka yar qaado factorada adaysan isku factor dumaan ka maqan yahay ku buuxi soo jibaarkiisu eber yahay hadda halkan factor meeshan ku jira hadda halkan ka maqan yahay waxaad ku buuxisaa soo jibaarkiisu uu eber yahay marka 20 dabcan marka GCF kii 20 balan fiirino oo muxuu noqonayaa LCM ka labada numberna aan fiirino
LCM kaasiga waxaan labada factor kan jibaarka weyn aan qaadanaynaa 2 power 2 iyo 2 power 2 marka la jibaar weyna 2 power 2 ka soo qaado 3 power 2 iyo 3 power 0 waxaad qaadaysaa 3 power 2 ka jibaarka weyn 5 power 0 iyo 5 power 1 waxaad qaadaysaa 5 power 1 marka kuwan haddii la fududay halkan waa 1 halkan waa 1 1 ku dhufo waska 1 halkaana waa 4 marka GCF ka labada number wuxuu noqon doonaa 4 LCM kuna wuxuu noqon doonaa haddii numberada la isku garaaco wuxuu noqon doonaa 180 taa macnaheedu wuxuu yahay labada number prime factors kooduna waa sidaan GCF koodi LCM kooduna waa sidaan marka 3 power 0 waa 1 the one prime factor maaha laakiin waxaan prime factor halaan unba ah 2 iyo 5 ta waa mahadsantihiin cashirkan intaasoo noogu egyahay waxaan rajeynaa inaad laba number kasta factorize garay doonto prime factorization kooda samey karto kadibna aad LCM kooda iyo GCF kooda samey karto waa mahadsantihiin maalin wanaagsan